إنه يهوش إذا أنا مركزته هذا الكيسة إلا هي روحه تجي ماذا محل هذا تي في إسلامات ويماذا ويرى هذا وطن كي وعلى ربع إلا كلام إثيوبيا وانت أنكس يعني كلا جسد الكيك الجزيرة هذيك دويت كلاس وما هين بدي إنجليزي العربي عندنا كلها إثيوبيا واحد هون يسوي كي يجينا كلا جسد في ما شو داري مجد ما شو داري دوارنتي زوجة هذه تستاهل يا شوي ستاز ما فايو على ربعنا خوش ياقو اللي يجوا واتفهم لا هذا هذيك صورك دقيقة حسن محادث لا ذا حسن وحوس كنت لقى ما لكن سيد وحور بما يسكر الله ولا بيحباش ولا لقدي سياسته ولا لقديها والإل بخسنة ساء ولا يغور مرايا هذيك الرياضول يا متى المياه ريباديات هاي اللي والله الله تعفيك قل باتر هذا تاع بحر كاس اللي قد جينا وقرين تور هدي اللي قد جينا بس وانا حسادي حسن siduu asaga wax u doonayay isla Ethiopia wax u doonayso ismalaha asaga wuxuu rabay in Ethiopia ay maaragtay ay tiraahdo okay dadkana si fulaan inta ay asaga inuu yiraahdo okay waa idin siinaya aniga maxay igu jira fulaan inta xaq qalinkii keen halka inta wax xasaas u rabay asaga la jare fiiri marka meesha dhibaatada ay ka bilaabatay halkaan waa badan dariskaaga baad adiga badda aad ka xigto cid kastaba iyaga ku soo bushgareeyaan adiga inaad ka aqbasho ma aha isfahan ama heshiis amni oo quseeya badda xitaa ma aha adiga bad mali ma la faayo aniga badan leeyahay laakiin wixii amniga waxaan kala shaqeynaynaa maxaa yiraahdaa bariga bas bariga waay aniga waxaan ka wada hadli karnaa bariga waay badda hor ku taalama badda waxaan u tagayaa waxa xaq naga xiga horta India Mauritius Oman Yemen Djibouti dadkaas u tagayaa dadkaas iska shaqeynayna ilaa ay waxa gaaraya hadaan doono maxaa la yiraahdaa tabciid meesha la yiraahdo Madagascar kuwaasan badda iska shaqeyn karna Indian Ocean ka maxaa la yiraahdaa xaqiiqi ka yimaado waa idinka xaq waxaan waa halkaan dhinacaan inta Mauritius adiga halkaanay waa Morocco kale adiga soo dhow waxyaalo noocaas oo kala laakiin Ethiopia إن المحل هذا أنا هذا بد maritime security بإثيوبيا إيش تخيلي هذيك مواراتها بس لبعض حسن لغوها يستو دعانا كم ده بحول لك now دينا عكرة parallel إثيوبيا يستبدل معها they know بحير طبعا دينا عكرة هذا parallel زمالي fragment ما ويكل بقعدها صح وحالي ذا ريجل كان حر بقى إنه بقى وركالي مصب يحيو مصبح exactly waxay la gaareen heshiiska noocaas oo kala ah oo maxal u soo socday oo ah heshiiska maritime-ka dhaqaalaha amniga xoolaha caafimaadka waxbarashada iyo maritime heshiiska badaha maritime muusana waa la galeen soo marka waxay haysataa laba is-afgarad bay haysataa is-afgarad mid horta waa heshiisba دولة الصومالي دولة إثيوبيا ودقاري تيك توك بانا صوصي حي 6 ديسمبر تيك توك بانا 6 ديسمبر ناو كاسي هاي ستا كي صومالي لنا واهي ستا هذيك المركة you do the math لابا قلوا في المركة واي هاي مرفايو 2 and 2 together equal واي ميقو بيدن باتر هذا labadan ba isku haysta inay ku andacoodan maanteeto inay yiraahdaan okay badda anaga dawladda waa ogeysiinay yiraahdeen fiiriya now day wuxuu yiri maxaa hada talaa intii la laga helay waa laga helay waa isqaad fulan ka inta TV-yadii wadankeena inta anaga waxaan bixinay slogans diblomaasiya waa adduunkii waa u soo jeedinay maxaa la yiraahdaa waa inay dalkan mushkiladii wax saas maxay ku dhamaanaysaa marka hal wada idin furan idinka Ethiopia wada hadla already waxa la galay through dialogue everything now meesha uu joogay goolna waa laga dhalay waa soo fariisay wax kasta waxaan ku dhamaynaynaa wada hadal marka wax kasta waxaan ku dhamaynaynaa wada hadal حسن محمود تاجي هذا way حسن محمود تاجي Ethiopia bad way helaysaa access qaabkay u helaysaa waa he knows
because تاجر محلي هذا United Nations كيالو وضمن اللاند لوكتا they have their own right to have a access to the sea UN كيالا marka ماشي maxaa imaanaya in hadhowto wada hadal laga galo dayax ayaa imaanaysa wada hadal in laga galo ma garanayo intuu xasan siinayo exactly by agreement maxaa la yiraahdaa waxa jira maxaa la yiraahdaa frame kaas loo hajiro Soomaa charter baa jira la charter uu ku qoray waaba gal kartaa idinka ba fiirin kara Google it is easy waa soo heli kartaan qaabka loo faham gareynaya marka muxuu ahaanaya marka xasan uu saxan yahay in a way charter kaas uu eegay uu soo fiiriyo uu ogyahay uu la socdaa kulli kula talinayo charter kaas waxa ku qoran yani dawladda dhexe inay mas'uul ka tahay xuduudaha badaha kalena gali karto waxa la isku haystaa taas way hadeertaan Muuse Biixi iyo Xasan Sheikh Maxamuud labadooda I don't believe Xasan inuu diiday Ethiopia inay batasho ma aaminsan ma diidana laakiin Muuse u soo martay waaye laba waxaan la isku dara maaha inay base meesha ka dhigato maxaa la yiraahdaa dabada laga riixayo oo ay geysato maxaa la yiraahdaa ciidamo iyo inay isticmaasho maxaa la yiraahdaa dekadaas oo aan la canshuurin kaliya laga qaado maxaa la yiraahdaa shati bas annual sanadkii ah umbu ogolyahay international laws oo siiga conventionka laakiin aan la caqabadayn iyaga intooda kale ما لا فايوم مرك خاركوت موقتها صاحب وإن أن إسفهمك وقاري وأوجع إنه واحد كهذا الشو لكن مرة رياليتي أنك كله حتى هذا فهمك إنه حتى ما حتى إن المعارضة يا جماعة أنا إلى خلاص كمان شو كسر دعي يتحدى ماشي يحيالان يسوي إحنا قلنا دوران أمبار فعلينا الناس وما خلاص ودعي دولة الصومالية مركز على الجزء بينه محلي لا ديان عد إيه كتاعي تاعرده قد يتعد مال عد إيه كتاعي أن لوس لا فكر يعني قد أحمر ويل سما شريفكي يعني red line and no one should cross that line guys تاسع حدا ولا هذا البعيمان يد طبعا سوى اكتاي حسب وحو تاغنيا والله ولا هلا ايثيوبيا لا اي كنقطه نكسيك هذا الكيس قدام بيكاس واي ايثيوبيا هدي بابليكلي انت اوتيمادا اي تراهدو وا كان نقوني محل يراهدا كوريدوركاس aan rabno inaan sameeyno oo maxal yiraahda halkaas waa kan noqon markay kala laabato waa la hadlayaa uu leeyahay laakiin dhulka lagu soo dhigay xasan salkan uu ka dhig xasano dawladaha dabada ka riixayna xasan waa iska diga aniga taas aan xabsi qabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يا horta dhibaatada taagan waxa waaye hebel aad nacab tahay jawaab ma ahan ama reer hebel aad nacab tahay dadka markii laga badiyo runta la taabsiyo oo dooda laga badiyo waxay dhufays ka dhigtaan hebel aad nacab tahay iyo reer hebel aad nacab taas ma aha jawaab warninkan waxa lagu haysto si cad uga jawaab annaga Xasan Sheikh marka wax ka sheegayno waxaan reference lahayn ma sheegin fiil waxaan runahayn ma ka sheegin oo ilaahay nagu og waxaan ilaahay nagu ogeyn ka sheegin fiil Xasan dabeecadaha uu leeyahay waxa kamida ajnabiga u jilcan yahay danaha danihiisana aad uga fikra laba ciladood oo madaxweynuhu uu lahaa kara way ogaada taas madaxweynaha waxa la rabaa dantiisa inuu tanqaranka hormariyo kow ajnabigan inuu soo jilcanaana la rabaa madaxweynaha war ajnabigu waxay fiiriyaan madaxweynaha jilcan waa kormaraan jidii ka dhigtaan wallahi madaxweynuhu waa inuu tusaa yani inuu yahay ninka kan oo la dhaafi karin waliba wadankaaga markuu burbursan yahay waxa lagu difaaca dabeecada lagu difaaca hadaa taa ninka kan ajnabigu waa ka wareegsayaan waxa leeyahay mid inkaar qaba meeshii fadhiya naga dhaafa leeyahay laakiin markii ay nabi ka dareemaan dabeecado hambal ah Soomaaliya heshiisa adduunkan la heshiisa waxa saday ka maqlaan wallahi gurigaaga la soo fadhiisa gurigaaga wallahi lagu imaa
laakiin hadday kaa maqlaan warsaad noola dhaqantiina idin la dhaqmayna madaxweynaha hadday ka maqlaan saad noola dhaqantiina hadda waxaa fadhiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya fadhiyay iyo madaxweynaha Kenya markii la caleema saaray farmaajo warsaad noola dhaqantiina idin la dhaqmayna haddaadna xumaysiina waa idin xumaynayna haddaadna waa idin wanaajinayna madaxweynuhu waa inuu leeyahay dabeecad ka kan waa inuu gudanka ku difaaca hadhow marka adiga militarigaaga dhismo oo dowladnimadaada dhisanto haddaa rabto xoogaa dabci oo dabeecad saaxiibtinimo muuji waayo markaas laguma soo geli karo fiiri markaas laguma imaan karo laakiin ilaahan ku dhaashay adigoo liita haddaad miskiinnimo aad samayso miskiinnimo haddaad samayso adigoo liita haddaad miskiinnimo samayso adigoo liita raxmay idaaf marka adigoo liita haddaad miskiinnimo samayso marka waa lagu soo gala gurigaaga lagu imaaha gurigaaga marka aniga waxaan qabaa waa iska xir bal haddaba isoo wac raxmay wadataa bal haddaba isoo wac fiiri adigoo miskiina waddankaaga burbursan yahay waxaas waxaa isticmaala ogaada dadka xasan sheekh difaacaha arrintaas isticmaalaya ogaada telefoonkaas waxaa isticmaalaya dadka dowladnimada Soomaaliya ka soo horjeeda isticmaalaya ana runtii dadka aan rabin dowladda maaragtay waraanaga dowladda fartaan gelina dowladda fiiri xasan markuu toosan anigu waa taageera xasan markuu hadal fiican oo ku hadlo runtiis waayaale waagi hadalkii Puntland oo kula hadlay oo yiraahdo iska burburinina waxaad samaysateen Puntland waa ku taageera aniga waa runtiis waayaa xaqoon u leeyahay laakiin markuu qaldan yahay aniga toos karboonaan ku qabaa waa kaasaan leeyahay xasan aniga ninka ugu horeeyo taageeraan ah rag mursadaan ku dagaalay bariga madaxweynaha laga dhigay wallahi inaan been idin sheegay war ninka aan aqoonyahan waaye dhaafaan ilay nimanka mursad laakiin ficilkiisa xoogaa aan marka soo qabsada dadka cuqdada iskiliya nuur xasan oo ka soo horjeedana heega raali ahaadaano waxaan reference lahayn waxaan runahayn aniga xasan ka sheegi maayo runtana waddankay dhistaa ogaada xasan naftigiisa runta waa ku dhismaa laakiin haddii laga aamuso fiiri haddii laga aamuso ninku nabi maaha ogaada nabi aan la toosin ilaaha toosi laakiin wixii ka soo hara xataa ninka weliga waa la toosi karaa ogaada waxba loo sheegi karaa marka raali ah soo qabsada